بانكا ما دام ضمن يقالة هاي واحد من الكروت هاي عدالة تدخل وهي واحد من مسيرة كروب على وعدالة إلا عدالة فلو أو كلامي كسرة يجي برضك فريسة كنا يكفي عندنا عدالة ما كعدالة هاي واحد يروح يتكلم فوق الأرض بس كيف العدالة دي قيب كان غني قيب كان غني هذا وعمل عدالة والله يرتا ninka maxkamad ka shaqeynaya iyo ninka maayir magaalada labaduba dhiban kan maxkamadda joogana mar walba laga cabanaya oo dadku complain kooda badan ninka maayirka hina qofka soo toosa baab arkay ay xashish meelaya kaasule meesha waxa ma jira gudir gaariga markuu ka dhaco ka qaylinaya marka isagoo hawl badan hayaba ay hadan la dhaliilaya marka kuwan garsoorka joogay maxkamadda ka shaqeynaya garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaha ayba deena shuruucdan ilaaliyaan oo dadkan cadaalad sameeyaan way tahay laakiin dhinacna lawyer baan ka hamadooyinka dambe waa ku dhex jiray oo company yar baan sameeyno hon consultant la yiraahdo oo legal firm aha anagii sidaal dooliye baan sameeynay niman lawyer raacankaasa aadan xaajali deewanin aqoon loo wax garanaya wax badan isbedel physically oo dhismayaashii la runjiyay oo ka muuqda laakiin internally gudaha marka aad eegto garsoorku halkii markii hore taagnaa inuu dib uga dhacad muddo oo matalan ba kuwa degmada joogo kale ama dadka la soo qoray meesha la keeyay dadka dilaalinaha meelahan ka dhigay jiray ama fiqiga in aaliga loo dhigi jiray ayaba lagu soo gorayn meesha dabeetana uu kala furayaan labadii loo keenay bis ka waa qoban maayba askartii oo dhaba qeylinay nin walba 5 milyan baa lagu xukumay inuu magarasa iyo bixiya milyan biila iyo kala tagaaj soo garmis maadhow halkan koox dhan baa noogu yimid inaan maxaa la yeelaa oo de sharcigu naamino ordo waawad aadan xaajali u tagaday garsooriyada degmada ka cabanayay marka dadkina dariiqii ma garanin looga cabanayay oo waxa jira xeerkii anshaxa jira oo la marade laakiin anu waxa la barto capacity-gooda dadka in la dhiso oo garsooruhu wuxuu kaaga adagi lawyerka kaga adagi qofkan isagoo procedure ka raaca hadii procedure ka inta halkan iska dhigo intiisa wato waa mushkiladii ma garanaysa wixii maxay la tahay uu soo toosiyay marka dad badan anagu meesha ku arkay horta way dhiban yihiin dadkina way dhibayaan shaqaale laftoodii oo dekoon waxa soo saaraya dadkina way dhibayaan oo matalan ba ka sanagoo lawyer ka abu qofkii lawyer ku had ku xiraya isagoo lawyer ka joogo ay adiga ku xiraya kaas le war maxaad u xidhay aniga xaq u leeyahay adii yeedhowne sidii qofka haduu wakiil leeyahay lama xiriiri kara kiyo wakiilku ma la hadlaysa wudi badan yihiin warshadkii baan garana kaaliyihii yaraaba shaqadiinta ciyaal yaro kaaliyalaba jiro imtixaana weligood baan ka hadli jiray barigi maxkamadda aan joogay mar bay ku mudaharaadeen ba TV qaranka waraysto masaan waxba ka qabanayna sabixida ma mudaharaadeen shaqayba mayno nin waalama meesha soo galo garsooro iska hadlaya marka kaliyo garsoorayaashu waa assistant kaagi shaqadiisu waxa weyn faylkii buu hayaa dacwadii ku mudeynaya nidaam qof qabiil wuxuu ku qoraya hadal qoraalkii ku qoray minuteskii ku qaadaya xiriirkii dadkii oo dhan buu sameynay in la garsooridii kala xiriiri sida ma garanaysa case-ka aad galeysay buu soo diyaarinaya wax badan ilaa garsoor waa inuu macaqalinkaas oo miiska saaran uu soo fariistaa meesha laakiin halkan wali waa iska degam marka kaaliyuhu saxiix ma kulleey soo garmis marka waa garsoorada nasaqano kula jooga dadkina cadaab ay lacag ku guranayaan adigina wax ku hoos dhigay hadana hoos u eegintay adiga laftiga baa la qabaa waa tuugo kula taala kama tabuudada iyo kala weeyaan daqaar fiican inuu ku jiraan runtii oo Soomaalidu ma jeclaan in wax la sheego laakiin halkii Cabdixakiin la yiraahdo gariiqaan oo macallin inuu hajiro shaarkaaga hadii la wajahanta taloon buu yiraahdo laakiin ha ka xanaaqin way marka way adoo improvement wuu jiraa laakiin in hoos loogu noqdo boorta tababarada loo badiyo ayaa muhiim oo dadkan qaar tabcaan oo kaaliyaasha gaboobay meelahan ku jiray oo ciidamkooda rugay dadka ayaa garsoor meelan laga soo dhigay soo garmis marka kale anigu waan dhaliilaya kuwa gariiqan runtii waxa taabatay point aad muhiim ah waliba mid kale aan ku yar daro
waxa kale oo aad yara dareemaysaa xitaa inaanu kalsoonidooda ay yar tahay xukaamtii oo ay ka awood badan yihiin xeraalayaasha way xeraaliyi guud ba halkan fadhiyo oo gudida cadaaladda ku jira marka xeraali yar halkan dad isku qondarinaya oo sareefanaya ma garanaysaa marka maxaa sabab xeer sharciga baa ogolo dastuurkii baa dameeyay xeraaliyi guud siinaya inuu gudida cadaaladda noqdo marka xeraaliyi kuwii ka wakiilka ahayd u shaqeynayay ama ku xigeenadiisa de lawyer bay wada doodayaan de judge-kii isagu uu isbidaya laana de halkan uu fadhiya halka xabashiyo taala jaqamay about danya weeyaan runtii qodob aad muhiim ah ayaa ka dhawaaqsay oo dadku ay aad u taliyeen in laga hadlo ruux mas'uul ah tahay mas'uulkuna ma aha marka mas'uuliyadda haya wixii qalad jira inuu maartay uu ka codway Soomaaliya dhibaatada haysta ay inta mas'uulka yahay oo amaan ka tagana uu hadla runtii waa uu hadlaya maadaama dhibaatada sheegtay dhibaato aad u weyn ay ka soo guuriyay meeshii kaliya dad ku noolaan lahaayeen ya si looga bixi karaa kula tahay maadaama dadkii hore u shaqeynayay waxa si sameeyay la sii dalacsiinayo horta ninka garsooraha ah keeska go'aan ka gaarayo isagii ilaahiisa weeyaan horta waa saddex nooc hadduu de asiibo waa ajar badii lagu qoraya haddii uu isagu arkayo dee dhinac marana dee waa dembi ma garanaysaa oo dee hay'ado dhan baa ka hadlatay ciyaar ama fududade waayo qofkii saddex waxoo dadka bilaadanki ay jecel yihiin baad ka qaadaysaa dil baad ku xukumaysaa sharaftaad ka qaadaysaa tug baad la xiraysaa maalkii baad ka qaadaysaa inta baad ka qaadaysaa saddexdiiba waa jeclaa marka de way adag tahay qofku inuu sidoo soo ilaaliyo bay ku xirantay etigiskiisa iyo damiirkiisa inuu nool yahay de hadii wax walba lagu shubo ma garanaysaa dhan walba ka guranayso ma anfacayso marka kormeero badan way jiraan wax badan oo laga saxay way jiraan laakiin still qabiya jirta oo sida media looga hadlo maaragtay gudaha marka la eego wax badan baa jira bari dhaweeda ku noqday marka intaan company-ga yare home consultants sameeyeen yaan maxkamada ku soo noqday te waxaan isla halkii hore waxba dhaama laakiin wax badan umay kordhin umay isbedelin ha talamba qof de shaqo wacan haya wuu jira sida ninkan gudoomiyaha gobolka ka rafcaanka qabcaynkaas way jiraan iyo gudoomiyaha maxkamadda sare oo jeclayna wax waliba ay socdaan laakiin deeply inuu guda galo weeyaan ma qof kasta soo qoslayeen oo ka baxay yes iyo no baa laga rabaa ma garasa hadii kala de cid walba mar hal gelin karis marka qaladaad wali wuu iska jiraa gudiyadii kormeerisay wixina way jiraan garsoorayaasha maxkamadda sare xaqana lacag ka qaadanaya hay'ada halkan kalena ka qaadanaya inay way jiraan ee ay dad professionals oo kale inay gudida u shaqeeyaan oo ay hay'ada u shaqeeyaan lacag ay ugu qaataan way jiraan